Daawade, nidaam kasta ama dowlad kasta oo aan ku dhisnayn kala dambeyn iyo sharci waxa ay ku dambaysaa fashil. Xoog kasta iyo wad kasta ha lahaatee. Haddaba waxaan kula wadaagayaa 5 hogaamiye oo dalalka Carabta ah kuwaasoo xukunka laga tuuray. 1. Zaynul Caabidiinkii Tunuusiya. Madaxweynihii Tunuusiya Zaynul Caabidiin bin Cali ayaa ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee dal Carbeed oo dowladdiisa la afgembiyey kadib kacdoon shacab. Zaynul Caabidiin bin Cali oo Tunuusiya xukumayay 23 sano ayaa isaga iyo qoyskiisu waxay u qaxeen dalka Sacuudiga bishii Janaayo sanadkii 2011 kadib mudaharaadyo socday muddo bil ah oo laga soo horjeeday dowladdiisa, kuwaasoo dhaliyay hirar kacdoon ah oo ka socda dalalka Carabta. Dibadbaxayaasha ayaa ku eedeeyay dowladdiisa inay ku guuldareysatay inay shaqo siiso muwaadiniin badan oo dalkaasi u dhashay, gaar ahaan dhalinyarada, waxaana ay ku eedeeyeen mas'uuliyiinta wax isdabamarin. Dibadbaxayaashaas ayaa dhashay kadib markii wiil dhalinyaro ah uu isgubay, kaasoo tacaddiyo kala kulmay ciidamada booliiska 17 Diseembar 2010. 2. Xusni Mubaarak Masar. Xusni Mubaarak ayaa Masar u talinayay 30 sano ka hor kacdoonnadii Carabta. Isbeddelka dowladeed ee ka dhacay ayaa sababay in Xusni Mubaarak laga saaro. Xusni Mubaarak ayaa xilka iska casilay kadib dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladdiisa oo ka dhacay 25 bishii Janaayo ee sanadkii 2011, kuwaasoo ka dhacay fagaaraha Tahriir ee Qaahira. 3. Cali Cabdalle Saalex Yaman. Dibadbaxyada oo dhowr bilood soconayay ayaa lagu afgembiyey dowladaha Carabta kadib duufaantu waxay gaadhay dalka Yaman, iyadoo dhowr bilood ay iska soo horjeedeen shacabka iyo dowladda. Uu Cali Cabdalle Saalex kadib oggolaaday inuu xilka ka dego. Cali Cabdalle Saalex ayaa oggolaaday inuu xilka ku wareejiyo ku-xigeenkiisii Cabdirabbi Mansuur Haadi kadib dibadbaxyo rabshado wata oo sababay in bambooyin lagu weeraro madaxtooyada, wuxuuna xafiiska ka tegay 23 Noofembar 2011 kadib markii uu ka soo kabsaday dhaawacyo ka soo gaadhay weerarkii bambooyin ee lagu qaaday gurigiisa iyo cadaadis kaga yimid gudaha dalka iyo dibaddiisa. 4. Mucaammar al-Qaddaafigii Liibiya. Mowjadda isbeddelka ayaa gaadhay dalka Liibiya, halkaas oo xukunka looga tuuray dowladdii uu hogaaminayay hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee Mucaammar al-Qaddaafi, kaas oo talada dalkaas hayay 42 sano. Mucaammar al-Qaddaafi ayaa ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee la dilo kadib dibadbaxyo ka dhan ah waddankii ka talinayay ama hogaamiyayaasha waddamada Carabta ay ka talinayeen. Mucaammar al-Qaddaafi wuxuu xukunka qabtay Sebtembar 1969 kadib afgembi lama filaan ah oo xukunka lagaga tuuray boqor Idriis oo taageero ka helayay Ingiriiska. Qaddaafi ayaa intuu talada hayay waxaa lagu eedeeyay inuu taageero jabhado ka dagaalama dalal kale. Mid ka mid ah waxyaalihii lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa ayaa ahayd qaraxii lagu qarxiyay diyaaraddii Ban ee Lockberry ee dalka Scotland bishii Diseembar sanadkii 1988. Weerarkaas oo ay ku dhinteen 259 qof oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda, 190 ka mid ahna ay u dhasheen dalka Mareykanka. Dibadbaxyada looga soo horjeeday dowladdiisa ayaa isu beddelay dagaal sokeeye, kaas oo ay ciidamada iyo fallaagada ku dagaalamayeen muddo 8 bilood ah. 20 Oktoobar 2011, dagaalyahanada fallaagada
ayaa ku dhawaaqay dhimashada Khadaafi oo ay sheegeen in lagu dilay magaaladii uu ku dhashay ee Sirta. 5. Bashaar al-Assadkii Suuriya. Madaxweynihii ugu dambeeyay ee dowladdiisa la afgembiyo ayaa ahaa Bashaar al-Assad, kadib markii kooxda Taxriir Shaam oo hogaaminaysay kacdoon ka dhan ah dowladdiisa afgembiyeen 8 Diseembar sanadkan 2024. Qoyska Assad ayaa Suuriya xukumayay 53 sano. Bashaar al-Assad ayaa talada la wareegay sanadkii 2000 kadib markuu talada kala wareegay aabihii oo 30 sano hayay. Wuxuu awood u adeegsaday sidii uu uga hortagi lahaa dibadbaxayaasha. Xaaladdaas ayaana isku beddeshay dagaal sokeeye. Dagaaladaas waxaa lagu dilay in ka badan 500,000 oo qof, 12 milyan kalena waxaa lagu khasbay inay ka barakacaan guryahooda. Laakiin kooxda Taxriir Shaam waxaa u suurto gashay inay weeraro ballaaran ka fuliyaan waqooyi galbeed dalka Suuriya. Kooxda ayaa qabsatay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Suuriya ee Xalab, waxayna u sii gudbeen dhanka magaalada caasimadda ah ee Dimashq, halkaas oo ay kaga awood roonaadeen ciidamada Suuriya. Kadibna uu halhaleel uga baxsaday. Bashaar al-Assad waxa uuna ahaa kii ugu xumaa